assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. soo dhowaada saaxiibayaal. maanta waxaynu isla arki doonaa cashar cusub, kaas oo aynu kaga hadli doono siyaabaha loo diyaarsado presentationka, amaba haddii jaamacadda iyo wixii la mida presentation ay kuu dirtay, sidee ayaad si yaroo fudud ugu diyaarsan kartaa artificial intelligencega amaba aaladda AI-ga. haddaba presentationkan aad ujeedaan ee quruxda badan waxaan ku diyaariyey artificial intelligencega ayaan ku diyaariyey. idinkana waynu isla arki doonaa siyaabaha loogu diyaariyo. ugu horeyn karoomkaaga amaba browserkaaga kugu jira soo furo. kadib markaad sidaas kale aad usoo furatid, waxaad ku qori doontaa google-ka ayaa waxaa ku qori doontaa gama. kelmadda gama markaad qortid, website-ka ugu horeeya ee kuu soo baxa ayaad ku dhufan doontaa. website-kaas koowaad marka aad ku dhufatid, ayaynu isla arki doonaa siyaabaha presentationka loo diyaariyo. ugu horeyn waxaad dhihi doontaa sign up in free, oo halkan ayuu kugu sheegi doonaa presentation ayaad ku diyaarsan kartaa adoo isticmaalaya AI-ga. markaa sign up ayaynu leenahay. sign up markaynu niraahno waxaynu gelin doonaa emailkeeni ayaynu gelin doonaa. haddii aad hore aad isku diiwaangelisay waxaad samayn kartaa inaad sign in tiraahdid. haddii kalena waxaad dhihi doontaa sign up iga dhig, halkaas ayaa dhihi doontaa. kadib hadda sign up ayay noo tahay. markaa waxaynu gelin doonaa emailkeena ayuunbayn gelin doonaa. emailkeena markaynu gelino ayaynu isla arki doonaa insha allah. saaxiibayaal, hadda wanigaa geliyey. intaasi ka bacdi saaxiibayaal waxau inoo soo saari doonaa hadduu alla idmo ma bersonal ahaan baa isticmaalaysaa mise combany ahaan. kadib bersonal ahaan ayaan doorananaa continue ayaynu leenahay. markaynu continue niraahno haddana wuxuuna sii weydiin doonaa ma iskuul ahaan baa isticmaali doontaa mise bersonal ahaan mise shaqo ahaan. markaa waxaynu leenahay bersonal ahaan, oo haddaad ku dhufatid bersonal ahaan 2 su-aalood buu ku weydiin doonaa. tusaale ahaan maxaad u samaysanaysaa oo kale, mina content creator noqotid mise designer mise marketing oo kale. markaa marketingka ayaynu iska doorananaa. dhowr qodob ayuu ku weydiin doonaa adigu. sidoo kale uuna weydiinayaa halka aynu kasoo raacnay linkigiisa amaba sidaynu ku ogaanay. markaa tiktok ayaan iska idhi. kadib waxaa inoo soo bixi doonaa qeybtan oo ah ma waxbaad generate garaynaysaa mise tagastiya waxaasaad qoraysaa. marka inuu wax inoo abuuro ayaynu rabnaa. generate ayaynu taabanay. haddana wuxuuna sii weydiin doonaa ma presentation baad diyaarsanaysaa mise website mise documenty. markaa presentation markaynu dooranno waxaynu ku qori doonaa hadduu alla idmo markaa presentation markaynu dooranno waxaynu ku qori doonaa, aan dib ugu yar noqdo. presentation markaynu dooranno waxaynu ku qori doonaa presentationkeena waxaynu kaga hadlayno amaba magaciisa. tusaale ahaan bitcoin-ka ayaan ka hadli doonaa. bitcoin ayaan ku qoray. kabacdi generate ayaan leeyahay. sidoo kale halkaa yare sare luuqadda ayaad ka bedeli kartaa. halkana waa inta page presentationkaaga noqonayo, oo 10 hadduu ka bato waa iibi weeyaan. markaa waxaad samayn kartaa markaad inta hore 10ka hore aad diyaarsatid ay haddana 10 kalena aad ku darsan kartaa. kadib saaxiibayaal wuxuu kuu soo taaxayaa outline-kii uu ka koobnaan lahaa. markaa haddaad ku qanci weydid mid ka mid a ama 2 ka mid a waad iska bedeli kartaa. adigu waxaad rabtid baa ku bedelan kartaa. tusaale ahaan waxaan dhihi doonaa farqiga u dhexeeya bitcoin-ka iyo ethereum-ka ayaan dhihi karaa. markaa aniga ku qoray bitcoin and ethereum. sidoo kale haddaad istiraahdi kaaris kale kusii darso, waa inaad mar kale aad abuurataa 10 kale weeyaan. haddii kalena waa inaad iibsataa. haddii su-aalaha ku qanci weydin regenerate waa dhihi kartaa, oo mar kale iigu celi waa dhihi kartaa. kabacdi waxaad taabanaysaa continue. markaad taabatid waxaa lagugu soo dhigi doonaa halkan nashqada uu ekaan doono presentationkaagu ama wadiimka uu yeelan doono. tusaale ahaan kan 3aad ayaan dooranayaa. kabacdi waxaan leeyahay generate markaan idhaahdo
waxaa si automatica laygu abuuri doonaa amaba laygu sameyn doonaa presentationkayga ayaa laygu diyaarin doonaa. Kabacdi marka uu sidan kugu dhameeyo hidhba intaa iska dhahaya. Kabacdi waa kan presentationkaygii oo dhammaystiran. maasha allah, presentation aad iyo aad u qurux badan. qodobkii aynu ku darsanayna waa kaas, farqiga u dhexeeya bitcoin-ka iyo ethereum-ka waa kaas. presentationkeenu iminka sidaas ayuu inoogu diyaarsan yahay. only waxaanu sameynaynaa inaynu la tagno powerpoint-ga, kabacdina waxaynu ka bedeli karno aynu ka bedelano. marka waxaynu sameyn doonaa halkaas ay ku qoran tahay share ayuunbaad ku dhufanaysaa. kabacdi waxaa leedahay export markaad tiraahdid wuxuu kugu dhihi doonaa ma pdf aan kugu soo saaraa mise powerpoint ahaan. inagu powerpoint baynu doonaynaa, powerpoint ayaynu ku dhufanay. markaasi waa uu soo yardegayaa, wax yar ayaad sugaysaa. kadib hadda waa la ii dhameeyey, waan soo furan doonaa. kombyuutarka ayaan ka dooran doonaa halkan la iga dhigay presentationkaygii. kabacdi marka aan sidaas kale aan ugu dhufto waxaan dhihi doonaa ii ogolow inaan wax ka bedelo. marka waxaad halkan hoose ka aragtaa in uu loogadoodii inoo dhigay uu yiri made in Ghana. waxaa sameeyey website-kan Ghana la dhaho, oo halkan ayaad ka aragtaa. marka yaroo dhalatay ayaynu ka saari doonaa xitaa magacooda. intaynu click siino ayaynu waxaynu sameyn doonaa delete ayaynu iska leenahay. yaroo dhalatay mid walba delete ayaynu iska leenahay. markaynu sidaas iskaga saarno waxaad u iman kartaa qoraaladaadii ayaad u iman kartaa. tusaale ahaan meelaha aad ku qanci weydid oo kale waad iska bedeli kartaa, oo adiga ayaa iska bedelan karaa. hadba sida aad rabtid ayaad ka dhigan kartaa. sidoo kale haddaad rabtid inaad qodobo kale oo kuu diyaarsana aad kusii darsatid presentationkaaga waad kusii darsan kartaa. sidoo kale halkana magaceeni gmailka inoogu qornaa ayuu inoogu soo daray, isagana waan iska saari karnaa. ilaa sawirkiisa waan iska saaraynaa. kadib markaad presentationkaaga sidaas aad u dhamaystiratid ayaad la tegi kartaa goobtii aad kasoo jeedinaysay, ama jaamacad ha ahaato ama goob kale oo waxbarasho ha ahaato. halkaas ayaad kasoo jeedinaysaa presentationkaagaas quruxda badan ayaa soo jeedin kartaa. sidoo kale waxyaalahan kale ee calaamadahan haddaad ku qanci weydid waad iska hagaajin kartaa, oo intaad dooratid ayaad iska bedeli kartaa. marka maanta casharkaas yar ee kooban ayaynu isla aragnay asxaabta. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu.